السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يا الميل والبود كسوغنتي وكسو دوادا channel كينا هوغان 24 ميديا وانيقو عبدولي معلم مالتو. inta badan dunidana ku noolnahay waxa maal waliba ka dhaca dhacdooyin la yaab leh ama mucjiso leh. dadka ku noolnahay tooda badani ay la fajacaan. waxana maanta barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa masaajidkii mucjisada. balse intaan u guda gelin barnaamijkeena like sar muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan share leh oo la wadaag saaxiibadaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale. hana hilmaamin inaad follow dhahdo page-keena sidoo kalena subscribe deh YouTube channel-keena kambalelkana furo si aad u heshid barnaamijyada cusub ee aan soo gelino. mahadsanid. masaajidka Kobe ee ku yaala dalka Japan dadka qaar waxay ku tilmaabaan masaajidkii mucjisada. wuxuu hadda ka hor ka badbaaday musiibooyin ka dhacay dalkaasi wuxuuna sidoo kale ka badbaaday bambaanooyinkii ay diyaaradaha Mareykanka ku garaacayeen magaalada Kobe xilligii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka sanadii 1945. waxaana xilligaas masaajidka gabaad ka dhigtay dad badan xilli bambaanooyinkii ay burburiyeen magaalooyin ku yaala dalka Japan. dadka qaar waxay masaajidkan ku tilmaamaan masaajidkii ugu horeeyay ee laga dhiso dalka Japan sanadii 1928 markii ay muslimiinta ku bateen magaalada dekada leh ee Kobe ayaa waxay u baahdeen meel ay ku cibaadaystaan. waxay bilaabeen inay lacag ururiyaan si ay ugu dhistaan masaajid. muslimiinta waxaa u badnaa kuwa ka soo jeeda dalka Hindiya iyo Turkiga. waxay xilligaas fasax ka heleen boqorkii ka arrimin jiray dalka Japan. masaajidkan wuxuu ka kooban yahay 3 dabaq waxaana nashqadeeyay injineer u dhashay dalka Czech Republic oo lagu magacaabo Jan Joseph Svaga. muuqaalka masaajidkan oo ah mid soo jiidasho leh wuxuu leeyahay mihrab iyo minbar aad u qurux badan. masaajidka Kobe waxaa si rasmi ah loo furay sanadii 1935 waxaana salaadaha ku tukanayay muslimiin badan oo ka soo jeeda gobolka Kansai. masaajidkan wuxuu sidoo kale ka badbaaday dhulgariir ka dhacay Japan sanadkii 1995 kaas oo ay ku dhinteen kumanaan qofood. sidoo kale wuxuu masaajidku ka badbaaday fatahaadihii dhimashada badan geystay ee saameeyay gobolka Kobe sanadii 1938. sidaas ayuu ugu baxay magaca masaajidkii mucjisada ahaa. masaajidkan ayaa ah mid caan ah wuxuu muslimiinta deegaanka u yahay goob ay ku cibaadaystaan isla markaana ay ku qabsadaan xafladaha iyo aroosyada dadka muslimiinta ah ay dhigtaan. dhismaha masaajidka waxaa sanadii 1943 la wareegay ciidamada badda ee dalka Japan. masaajidkan ilaa iyo maanta waxaa ku tukada muslimiin badan wuxuuna ku yaalaa deegaan ku caanbaxay dalxiisayaasha. waxaa intaa inoogu eg warbixinteennii oo aan idiin soo gudbinaya anigoo ah Cabduuli Macallim Alto. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like saar subscribe dheh adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina. hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheer garanaya muuqaalkan. mahadsanid.